Barcelona oo si rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixii laga sugayay Pep Guardiola oo ka warbixiyay xaaladda Bernardo Silva kadib dhaawacii soo gaaray kulankii Champions League. Mbappe oo barbareeyay rikoor uu Cavani PSG ugu dhigay Champions League, iyo Thiago Silva oo ka murugooday in Chelsea ay Champions League ka maqan tahay kadib kulamadii uu xalay daawaday. Dhammaan amurahan ayaa kugu soo gudbin doona muuqaalkan, balse marka hore waxaa kaa codsanaya haddii aad igala socoto page-ka kusoo biro follow dhaho, sidoo kale samee shuruud walba oon ku saaxiibi karno sida like iyo share si muuqaalka uu gaaro meel fog. Hagaag, kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday heshiis cusub oo in muddo ah laga sugayay oo ay ka saxiixatay xiddiga da'da yar ee daafaca bidix ka ciyaara Alejandro Balde, kaas oo qalinka ku dugay heshiis waqti dheer ku haynaya garoonka Camp Nou. War-saxaafadeed ay Barcelona soo saartay ayaa lagu sheegay in heshiis cusub oo socon doona ilaa bisha Juun 30keeda 2023 uu saxiixay daafaca bidix ee reer Spain Alejandro Balde, kaas oo qandaraaskiisa lagu daray qodob lagu burburin karayo 1 milyan oo euro. Balde oo ka soo baxay kuliyadda da'yarta Barcelona ee La Masia ayaa si rasmi ah waxay Barcelona ugu soo bandhigi doontaa garoonkeeda gelinka dambe ee maalinta beri ah, isagoo sidaasi kaga mid noqonaya kooxda koowaad ee uu horeba uga ciyaari jiray isagoo da'yarta ku xisaabsan. 19 sano jirkan oo kulankiisii koowaad ee kooxda koowaad uu safay tababarihii hore ee naadiga Barcelona ee shaqada laga ceeriyay Ronald Koeman ayaa si joogto ah uga ciyaarayay booska difaaca bidix ee xilciyaareedkii 2022-23 oo tababare Xavi Hernandez ka dhigay Yuri Alba oo markii dambe ku riixay inuu ka tago kooxda. Balde oo sidoo kale xoogsaday booskiisa xulka qaranka Spain ayaa waxaa heshiiska cusub ee uu saxiixay uu meesha ka saaraya hungurigii ku jiray kooxaha waaweyn ee reer Yurub sida Manchester City oo doonaysa inay ka afduubato kooxda Barcelona. Balde ayaa horaantii xilciyaareedkan uu horyaalka La Liga ku diiwaan geliyay kooxda koowaad, waxaana lagu wareejiyay lambarka 3 ee kooxda Barcelona. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa ka hadlay xaaladda xiddiga Bernardo Silva, kaas oo dhaawac uga baxay kulankii Champions League. Bernardo Silva ayaa dhaawac uga baxay kulankii City guusha weyn ee ka gaartay tartanka Champions League kadib ciyaaryahankan ayaa lagu bedelay ciyaaryahanka cusub ee kooxda Manchester City ee la yiraahdo Jeremy Doku. Xiddiga reer Portugal ayaa ku dhibaatooday dhaawac intii ay socotay ciyaarta, waxaana uu sii wadan kari waayay ciyaartaasi. Guardiola ayaa xaqiijiyay ciyaarta kadib in xiddigu garoomada uu ka maqnaan doono in muddo ah kadib dhaawaca soo gaaray. Bernardo waxa uu garoomada ka maqnaan doonaa dhowr toddobaad, ayuu Guardiola yiri ciyaarta kadib. Dhibaatooyin ayaa ku jirnaa, laakiin ma dhihi doono waxaan qabnaa dhaawacyo badan, ayuu Pep Guardiola kusoo gabagabeeyay hadalkiisa. Dhinaca kale, xiddiga kooxda PSG ee Kylian Mbappe ayaa guul ku hogaamiyay kooxdiisa PSG kulan ay la ciyaareen Borussia Dortmund tartanka Champions League. Mbappe ayaa kooxdiisa u dhaliyay goolka koowaad ee kulanka daqiiqadii 49 ee ciyaarta, sida laga soo xigtay shabakada Opta. Xiddiga Kylian Mbappe ayaa ku lug lahaa 29 gool 22 kulan ee ugu dambeeyay Champions League. Mbappe ayaa dhaliyay 22 gool halka uu caawiye ka noqday 8 kale. Sidoo kale, Kylian Mbappe ayaa gool u dhaliyay kooxdiisa Champions League xilciyaareedkii toddobaad oo xiriir ah, waxaana uu sidaa ku barbareeyay xiddigii hore ee kooxda PSG Edson Cavani. Ugu dambeynna, Thiago Silva ayaa bartiisa Twitterka ku ooyay kahor kulankii ay Newcastle United la ciyaartay naadiga AC Milan Champions League, maadaama ay Chelsea ka maqan tahay tartanka xiisaha badan UEFA Champions League. Markii ugu horeysay tan iyo 2009 Thiago Silva kama ciyaari doono tartamada Yurub kadib markii ay kooxda Mauricio Pochettino ay ku dhameysatay kaalinta 12aad ee horyaalka Premier League xilciyaareedkii la soo dhaafay. Daafaca 38 sano jirka ah ee reer Brazil, kaas oo si xor ah ugu soo biiray Chelsea sanadkii 2020 ayaa horey si aad ah uga hadlay xaaladda kooxda iyo hoos u dhaca ku yimid 5 bilood kadib markii uu faalo ka bixiyay hoos u dhaca kooxda. Thiago Silva ayaa ka falceliyay in Chelsea ay ka maqan tahay Champions League oo xalay bilowday. Waxa uu bartiisa Twitterka ku soo qoray Champions League iyo emoji ooyin ah ka hor inta aysan bilaaban ciyaartii barbaraha ku dhamaatay ee dhexmartay kooxaha Newcastle United iyo AC Milan.